السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan nisoo gudbi doonaa qiso cajiib ah nin hirbaadiye ah oo la kulmay ninkii boqortooyada ka ahaa magaaladii uu deganaa. maanta insha Allah taala qisas ayaan ka hadli doonaa. waxaan hadda noo barateen qisooyin aad u fara badan insha Allah taala daawasho wanaagsan qisada. nin reer miyi ah ama reer baadiye ah oo ku nool teendhooyin ku yaala saxaraha dhexdooda waa nin aad faqiir u ah, badanaana ma helo cunto uu siiyo xaaskiisa iyo carruurtiisa. haddana sidaa ay tahay waa mid raali ku ah noloshiisa, weligiisna cidna muusan u cabanin waxaan alla ka ahayn. alla oo keliya ayuu baahidiisa u bandhigtay. ninkani waa sida ku maqasheen waa nin hirbaadiye ah, qofna weligiisna wax ma weydiisanin. wuxuu wax weydiisan jiray ilaahi subxaanahu wa tacaala. wax la weydiisto waxa ugu fiican waa ilaahi subxaanahu wa tacaala. qof bili aadan ah markii aad wax weydiisatid waxay ka qaadaysaa kibir iyo isla weyni, laakiin ilaahi haddii aad wax weydiisay waysan kaa caroonaya. marka inaad wax weydiisato waliba inaad wax weydiisatid ilaahi subxaanahu wa tacaala. bal aan dhanka haysteen labadii nin ayaa maqlay wixii ay ku hadlayeen ninkii reer miyiga ahaa iyo xaaskiisa, waxayna ogaadeen in ninkani xoolo dhan uu ka haysto ridan oo keliya. waxay isku dayeen inay ka celiyaan oo uusan gowracin, laakiin ninkii reer miyiga ahaa ayaa ka diiday, asagoo ilaalinaya sharafta qoyskiisa iyo tan Muslim kaas oo oranayo man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyukrim dayfahu. qofkii rumaysan alla iyo maalinta aakhiro ha wanaajiyo martidiisa. si uu degdeg ku jira ayay xaaskiisii u istaagtay, waxayna gowracday ridii. dadkii waxay dhaheen iska daa, iska qalin neefka adeysatid. asina wuu ka diiday, waana halkii neef keliya uu haystay. bal aan daawano qisadani oo cajiibka ah. miyiga ah ma garanaya labadan nin ee uu marti sooray. labadan nin ee uu marti qaaday mid ka mid ah waa xaakimka magaalada ama madaxweynaha magaalada iyo wasiirkiisa. maalmo kadib ninkii reer miyiga ah wuxuu aaday magaaladii, wuxuuna raadiyay labadii nin. muddo ayuuna raadinayay ilaa uu uga tilmaamay nin ayaga oo ku tukanaya masaajid meesha u dhowaa. ninkii reer miyiga ah waxa uu soo galay masaajidkii, salaad ayuuna tukaday. intuusan u tagin labadii nin ayuu naftiisa weydiiyey, sideen makhluuq alla abuuray u weydiisanayaa kaalmo aan u weydiisan la'ahay allah wax irsaaqo ayagana abuuray. kadib wuxuu iskaga soo noqday teendhadiisii saxarada ku taallay. xaaskiisii ayuuna u sheegay wixii dhacay. xaaskiisii ayaa aad ugu faraxday, taa oo ahayd mid qalbigeeda uu alle ka buuxiyey kalsoonida alle. habeenkii xigay waxaa kacday dabeel aad u weyn, waxayna burburisay teendhadii. aroortii hore ayay asaga iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa u safreen meel kale. markii uu soo gaaray halkii ay degi lahaayeen ayuu bilaabay inuu teendhadii suro. dabadeed wuxuu bilaabay inuu dhulka qodo si uu u geliyo geedihii teendhada. sidii uu dhulka u qodayay ayuu helay sanduuq aad u weyn. markii uu furay mise waxaa ka buuxa dahab. aad ayuuna ugu farxay, wuxuuna go'aansaday inuu iibiyo dahabkan, dabadeedna guri weyn uu ka dhista magaalada. ninkii reer miyiga ahaa wuxuu magaaladii ka dhisay qasri weyn oo ay ku sheekaystaan dadkii magaalada degnaa quruxdiisa iyo weyninkiisa. kadib hadalhayntii qasriga waxa ay soo gaartay ninkii haystay magaalada ama xaakimkii magaalada, wuxuuna u diray mid ka mid ah askartiisa si uu u soo ogaado cidda iska leh qasrigan la hadal hayo. ninkii askariga ahaa wuu baxay, dabadeedna dib ayuu u soo laabtay asagoo xaakimkii war u sida. wuxuuna u sheegay xaakimkii magaalada inuu qasrigan dhisay nin degnaan jiray teendho ku taallo bartamaha saxaraha, halkaas uuna ka helay sanduuq dahab ka buuxo. kadibna uu iibsaday sanduuqii, lacagta uu ka helayna wuxuu ku iibsaday ama uu ku dhisay qasrigan. xaakimkii magaalada iyo wasiirkiisa ayaa isa soo raacay, waxayna soo aadeen qasrigii ninkii reer miyiga ahaa si ay u arkaan qasrigan la hadal hayo. markii ay arkeen ninkii reer miyiga ahaa way garteen. ninkii reer miyiga ahaa isagana wuxuu gartay nimankani u yimi horeyna uu u marti sooray inay yihiin xaakimkii magaalada iyo wasiirkiisa. aad ayuuna ugu farxay kulankoodii. xaakimkii ayaa ku yidhi ninkii reer miyiga ahaa, maxaad inoogu imaan weyday, soo miyaanan ku ballaminin? ninkii reer miyiga ahaa ayaa ku yidhi, waan idiin imaaday, adigana kuma garanaynin in aad tahay xaakimka magaalada. anigoo kuu soo socda oo kuu dhow ayaan isweydiiyey, sideen addoon alla abuuray kaalmo u weydiisanayaa ayadoo uu joogo allaha kan aad wax weydiisanaysa abuuray. addoonkuna ma wanaagsano inuu wax weydiisto talana saarsado cidaan alla ahayn.
kadib waan iska laabtay oo teendhadeedii ayaan iskaga noqday. Alla ayaana tala saartay, wuxuuna i siiyey arsaaqadan ballaaran. Ninkii xaakimka ahaa ayaa ku farxay hadalkii ninkii reer miyiga ahaa. Intaa kadib xaakimkii magaalada ayaa ku yidhi, maanta laga bilaabo waxaa tahay mid ka mid ah asxaabta aadka iigu dhow, waxaana kaa bartay cashir aanan weligay iloobaynin, kaa oo ah in aad Alla tala saarato mar kasta. aad baa umahadsantihiin. wax waliba waa in mar waliba waa inaad Alla tala saarataa si qof bini aadan noloshaada aadan wax u weydiisanin. ilaahay subxaanahu wa tacaala taladaad u dhiibo, asiga ayaa ku uuntay, asiga ayaana ku arsaaqaya, asiga ayaana wax waliba ku sameynaya. insha Allah tacaala fiidiyogan xigo waxaan halkan iga soo gudbinaa insha Allah tacaala. aad umahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. fiidiyogan xiga insha Allah tacaala.